kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal iyo daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii toddobaad sheekadii aynu ugu magac darnay curad oo uu qoray saaxiibkeen Maahir Jaamac Aadan. qaybtii lixaad ee sheekadan waxay noo joogtay iyadoo la sugayo in la kaceeyo xarunta cilaajka hase yeeshee qaybtan toddobaad waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan. waxaa la gaaray waqtigii wacdaraha waxa subaxnimadii hore ii timi Sahra anigoo sidii ugu xidhan qolkayga waxaan xaqiiqsaday filashadeedii ahayd in saakay la kaxeynayo xarunta cilaajka ugu weyn ee magaalada. halkaas waxaa jooga wadaad caan ah oo isticmaala qalabka warbaahinta ama duuba muuqaalada inta uu ruuxa daweynayo. waxaan shaki ku jirin in warkayga meel walba uu gaari doono. intaas kadib Sahra waxay iska fariisatay dhinaca ka mid ah sariirta iyadoo cara iyo fikir la aamusan. aad ayaan u eegay wajigeeda oo waxaan isiri la wadaag qorshaha aad go'aansatay. haddana maya ayaan isiri oo si aan u dejiyo qalbigeeda haatan haddii aan iska sii xog waramo waxa ay qabsan kartaa guul darro weyn. sida awgeed waa in aniga iyo Maxamuud uu midkeen libinta u yeeshaa. sidii iyadoo ila joogta Sahra ayaan banaanka ka maqalnay codka Maxamuud oo soo kalahay saakay. markiiba way booday si uusan isugu kaay arag. wax yar kadib maamadii iyo Maxamuud oo wada socda ayaa ii soo galay oo isla markiiba gaariga ayaa la igu riday waxaana la ii soo kaxeeyay xaruntii cilaajka. intaan saarneen gaariga ayuu Maxamuud haadka dhexe ee gaariga dhowr jeer iga soo eegay maadaama aan qaybta dambe ka fadhiyo gaariga wuxuuna qiimeynayay dareenkayga. anna mar walba waan dhoola cadeynayay. way dhici kartaa inuu iska ka ilaalinayay maadaama aan fadhiyo gadaashiisa oo uu iga aaminsan yahay nin xanuunsan isaguna uu xilligaasi kaxeynayo gaariga. markaan soo gaarnay xaruntii waxaa toos noola geeyay qol u gaara wadaadka meesha dadka ku daweeya oo ay la joogaan dhalinyaro wadaado u badan kuwaasi oo si wada jira quraanka ugu akhriya bukaanka la keeno xarunta. laakiin aniga marnaba ma hakin quraankii aan hoosta ka akhrinayay ilaa uu wadaadkii noogu yimaado. kadibna aniga ayaa la iga warbixiyay waxaana hubaa haddaan joogi lahaa booska wadaadka oo intaas xog ah la iga siin lahaa marnaba isma dhaheen ninkan uu caafimaad qaba. sidaa daraadeed buu wadaadkiina yiri ninkan waa la saaran yahay insha Allah waan ka dejinaynaa xoogaa isuga intaan hawl yar ka soo dhameysanayo. intii uu maqnaa wadaadka waxaa noo yimid ninkii adeerkeen guud ahaa ee walaalkeen maqan ay soo wada hadleen. waxaana la socda saaxiibkay Salaad oo malaha ay wax badan ay ka soo wada sheekaysteen intii ay soo wada socdeen. aniga indhaha baan wax ka daawanaya ee inaan ruux salaamo ama hadal iyo sheeko aan ku saabsan caafimaadkayga ayna dhex marto ma rabo. dadkuna ehelka bay xog wareysanayeen. xoogaa kadib waana la wacay waan xaroonay oo waxaa la bilaabay duubista kaamirada wadaadka meesha ugu xirneed. waxaa la wareysanayaa ehelkaygii oo ka hadlaya dhibta la ii keenay meesha. waan dhibsaday duubista waxaan iri maad naga dhaaftaan kaamirada. wadaadkii oo qoslaya ayaa yiri war kuwani haddayba heegan yihiin qur'aan badani uma baahna. wuxuu ula jeedaa duulkan ninkan saaran waa kuwo indhaha cad uma baahna raadin badan. waxaa loo soo gudbay dhankeyga qur'aan iyo wax kaleba waa la isugu kay daray. anna iyaga hortood baan sii akhrinayay quraanka. waxaa goobta jooga dhammaan dadkii ehel iyo saaxiib dhowba. waxaan xoogaa sugayay ninkii adeerkeen ahaa ee banaanka ku yara daahi. markuu ii soo muuqday isagoo soo galaya ayaan jileynkeygii hore ee aan hore ugu nafisay mar kale sameeyay. waxaan bilaabay iswaalid buuq iyo oohin. wadaadkii baa gacanta i qabtay oo ii hortaagan wuxuuna bilaabay hadla iscadeeya. waxaan ku yiri joojiyo quraanka. cabaar ayaa la igu sii waday quraanka kadibna waxaa la galay weydiinta. waxaan goortaasi isiri dhammaan
waxaan ilaa xalay aad soo qorsheynaysay waa halis aan u bareeray xilligaasi haddana waa sida kaliya ee anigu aan isku bixin karo markaasi hadalkayguna sidan ayuu u dhacay ninka idila hadlaya waa curad qoysku wayna garanayaan horay baan idinku sheegay inaad nasiisaan wiilka anigu waxaan hortaaganahay koox jin ah oo la soo adeegsaday oo noloshiisa lagu dhaafinayo adoonkan miskiinka ah jinkana waa rag iyo dumar ay soo adeegsadeen rag eheladiisa waliba ay doonayaan in uu maryaha tuuro wiilkan sababtuna waan ogahay intaas markaan iri baan eegay wajiga Maxamuud walle ma ahayn wajigii kalsoonida badnaa ee saakay kadib waan ku sii celceliyay hadalkii badi ehelka bisinka ayaa ka soo haray koox ay saaro ugu horeyso waxa ay leeyihiin alla waa kuwaas sheega dhaha wadaadkiina wuxuu leeyahay maya annaga in dad la magacaabo ma rabno mana ahan siyaasadeena dawo sidaas laakiin annaga markaas ayaan xoogaa kadib aan dhahnaa waan sheegaynaa dadkaas nolosha u diiday wiilkan mana ahan dad fog haddii aan sheego Maxamuud isaga iyo cid kale oo warkayga beeni karta ma lahan waayo isaga ku dhaaranaya inaan waalanahay ama uu duul isaaran yahay haddana kama marna meesha isweydiinta xagee Maxamuud uu ka helayaa kalsoonida inaan anigu caafimaad taamahay aan haysan kullay xaqiiqda daason qisadan ayaa na dulgay doonta laakiin saacadihii ugu adkaa ayaa la isla marayaa xilligan Maxamuud wuxuu arkayay inuusan xaalku wanaagsaneen oo wuxuu u baxay banaanka waxa ayna raacday maamada markii u dambeysana waxa kacay ninkii adeerkeen ahaa wax badan kadib maamada iyo adeer baa soo laabtay malaha wuu tagay Maxamuud laakiin sabab ma garan karo sababta wali aniga ayaa hadba dhan waxa iska tusaya isla markaana wadaad baa hawshiisa aniga igu dul haysta ma sidan doonayaa saxa oo Maxamuud waxani wax buu kala socdaa mase waa walaal aan ku qaldamayo haddaba xaqiiqda ma foga oo waa marka ay ugu dhowdahay la soco qaybta 8 insha Allah